الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا دولبيديت ميدي جروب دولبيديت ميدي جروب waxaad ugu barateen mar waliba inuu hiilo iyo garab u noqdo qof waliba oo dulbada ah barnaamijyadeena inta badan waxaan kusoo qaadan doonaa saameynta iyo dhibaatooyinka uu dulmiga u geystay bulshooyinka Soomaaliyeed ha ahaadaan dalka dibadiisa iyo gudihiisa barnaamijkii aan xalay aan ka sii deynay dulmidiid media group kaasoo ku saabsanaa saameynta uu ku yeeshay bulshooyinka Soomaaliyeed dulmiga alxamdulillah dad badan ayaa waxay ka sameeyeen jawaab celin waana arrin aad noo farxad gelisay isla markaana dhiirigelin noo noqotay runaatii aad ayaan idinka mahad celinaynaa qaabka aad ugu taxantihiin ama aad ugu xiran tihiin dulmidiid media group ama aad garab ugu noqoteen in aad mar waliba aad dhinac istaagtaan dadka la dulmay insha Allah barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa mid joogta mar waliba sidaan hore idinku sheegnay dadkii aan ka helnay jawaab celinta ama hambaliyada iyo bogaadinta oo nala soo xiriiray waxaa ka mid ah Xasan Xaaji Muuse oo ku sugan magaalada Nyköping ee dalka Sweden isla markaana ah bare wax ka bara dugsiyada ku yaala magaaladaas xasan aad buu u maasan yahay run ahaantii hadaladiisa iyo fariintiisa aad bay noo farxad gelisay waxayna noqotay mid anaga noo noqoto ku dayasho iyo inaan barnaamijyadeena aan hore usii wadno xasan xaaji muuse muuqaal ayuu noo soo diray kaasoo run ahaantii oo marka hore oo bogaadin iyo hambalyo uu ugu sameeyey channelka cusub isla markaana uu ku cabirayay dareenkiisa ku aadan dulmiga wuxuuna noo ballan qaaday in uu mar waliba si joogto ah nala soo xiriiri doono cashira toos ahna oo ka bixin doono xasan hadaladii ama fariintii ama muuqaalkii uuna soo gudbiyey wuxuu ahaa sida tan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد waxaan halkan tahniyad iyo bogaadin iyo hambalyo iyo soo dhaweyn ba ugu dirayaa channelka cusub ee dulmidiid media group oo ay u istaageen dhalinyaro Soomaaliyeed oo gartay inay laga maarmaan tahay inay u heeliyaan kuwa dulman oo ay isleeyihiin codkoodu meel loo baahnaa inuu gaaro ayuusan gaari karin xaalad jirta awgeed hadday noqon lahayd maxaan ku rahdaa fursadii dadkaasi ku gudbin lahaayeen fikir iyo dhibkooda iyo wixii ay maxaan ku rahdaa tabanayaanba haddana waxaa arrintaasi maanta u istaagay oo boogtaas dhayay oo baahidaas daboolay dhalinyaro aan isleeyahay waxay qaadeen talaabadan xilligii ku habooneed ee looga baahnaa inay maxaan ku rahdaa isbedel la yimaadaan oo ay xaqa u hiiliyaan oo ay dulmiga ka hortagaan magacoodana ay adkeeyaan siday ula baxeen dulmidiid oo ay ka dhabeeyaan annaguna haddaan nahay bahda aqoon-yahanada Soomaaliyeed ka dhalinyaranimo ka odaytinimo Soomaaliyeed waxaan jecelnahay inaanu arrintaasi ku gacan siino oo aan soo dhaweyno fikirkaas maskaxdooda ka soo maaxay oo ay u istaageen jeclaysteenna inay arrimahaasi in laga gudbo ereyga dulmi oo aan wada ognahay martabada uu ku fadhiyo darajo ahaan sida qalbigu uu ku yahay qof kasta qalbigiisa inuu yahay wax la jeclaysanayo iyo wax aan qalbiga u rooneyn waan wada aragnaa laakiin qofka dulmidiidka ah markiiba wuxuu helayaa fursad oo muxuu ahaa loo soo dhawaado agtiisa laga dhageysto wuxuu sheegayo hiilo loo soo doonto la soo yani kaalmo bido intaasoo dhan wuxuu ku mutaysanayaa magacaas isaga ah uu xambaarsan yahay qofka la baxay magacaasi ee dulmidiidka annaguna waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa kaalinna uga geysanaynaa intiina looga baahdo hiil iyo hooba
talo iyo tusaale meelaha ay wax ka khaldan yihiin oo anaga laftigeena oon markaasi aanu wax gaarsiino yani dadku ugu tusaaleyno xaqa ugu helino wixii ka khaldan oon tusno dhibka jiroon yani soo bandhigno xalkiisoon yani la wadaagno tala ahaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba waxaan dhihi karaa 75 inay dhibanayaal yihiin 25 maahan oo ah kuwa dhibanay dhibka geysta haddana intoodaas waxaa is leedahay maanta ma haystaan qaab ay u abaaraan ama ay wax xaliyaan meel bay laadahay baashu sidaan anagu aragno waxaan is leeyahay haddii meelahaas la abaarana waxaa suuli karaa waxa la yiraahdo dulmiga laakiin haddii la waayo weligiis uu jiraya uu adkaanaya uu sii xoogeysanaya sidaan aragna caalamka oo dhan buu ku baahsan yahay dulmiga wadan buu haddana ula sii degay wadan kastana sidii loo kala awood badan yahay sidii loo kala xoog badan yahay sidii loo kala dhaqaale badan yahay sida loo kala fursad fiican yahay baa loogu sii kala dhiban yahay loogu kala hooseeya ilaa la isaga soo gaaro heer deris oo laba family oo deris ah ay aad iyo aad isu dhibayaan taasoo ka fog yani diinta islaamka iyo maxaan ku raahdaa axaadiista nabigaba iyo maxaan ku raahdaa tii dadnimo xaggeedaba marka labada arrimoodan isleeyahay waa lagu suulin karaa labada arrimoodan isleeyahay waxbaa ay xal ugu noqon karaan qof kasta waxaan u maleynayaa inay u muuqato laakiin weli dadkii wajahi lahaa ayaa meesha ka maqan waxaan leeyahay aan isleeyahay iyaga ayaana ah kuwa intaan soo gaarsiiyay mise aad iyo aad u dhiirigelinaya mise ku faraxsan inay xaaladdu halkaas tusaale markaan soo qaadano wadankeena ay soo gaarto 25 sano ama 30 sano ku dhawaad hal xaalad oo dhibaato ah oo dawlad la'aan ah oo isdil ah oo yani maalinta kasii dambaysa xaalad cusub la sii dhaxgalayo oo dhalinyaradii ay ku fasaadayaan oo ay ku baadiyoobayaan oo diintii ay daciif ku noqonayso oo imaamkii uu sii yaraanayo oo daciif ku noqonayo oo yani dadkii dhiigoodii ay aad isu banaysanayaan oo dilkii aan la yaabin intaas oo dhan laba meelood ayaan anigu ciladeeda aadinayaa labadaas meelood baan isleeyahay waa ay u sabab yihiin haddii ay iyagu istaagaan ama ay wax ka qabtaanna dadka kale way raaci lahayn ama ku dhibka wada si fudud baa loo qaban lahaa odayaasha dhaqamada anigu hadda oday dhaqan maba dhihi karo odayaasha qabaa'ilada oo uu loolan qabiileed ka dhexeeyo hadday noqon lahayd tii deegaannimo hadday noqon lahayd tii dowladnimo hadday noqon lahayd tii maxay ahayto magac ay isleeyihiin waad ku gaaraysaan ama ku dhowrta talabaad culamaa u diinka labadaas qaybood ayaa ay dowlad shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin inay garab xaq ah oo cadaalad ah ay ugu helaan oo ay ugu hiiliyaan dadka dhibanayaasha ah dhammaan meel kasta ay joogaan ama dulmanayaasha ah haddii qofkii sheekha ahaa ee caalimka ahaa maxaan ku raahdaa diintii loo xil saaray oo maxaan ku raahdaa ilaahay u saqiray inuu maxaan ku raahdaa kutubkii ilaahay xukunkiisii uu bartay ka faahfaahiyo yani talaabo kastana meeshii ay ku habbooneed la marsiyo wixii ka khaldanaa dadku uu ugu yeero aayadihii qur-aanka iyo xadiiska nabiga oo si nadiif ah u gudan lahaa hadduu walaalkiisa yahay kii dhibanaha oo yani dulmiilaha ah uu intuu gacanta qabto runta ugu sheegi lahaa u naseexayn lahaa way yaraan lahayd oo shacabkii raaci lahaayeen oo iyagu isugu kulmin lahaayeen waxaasoo dhan waa laga gudbi lahaa laakiin iyagii baa ka aamusan waxaadna moodaa inay ku qanacsan yihiin ama ay ku raaliyin iyaga laftooda inay magaca qabiilka ay kasoo jeedaan ay yani dhibka heer ka gaarsiisan yihiin taas laftigooda baa laftigeeda aad moodaaba inay iyagu ay aad iyo aad uga gaabsanayaan inay arrintaas u istaagaan in yar oo aan badnayn khayr allah siiya maahane intooda badan way ka aamusiin waajibaadkoodana way ka seexdeen qolada labaadna waa odayaasha qabaa'ilada oo iyagana sidaas oo kale ah oo maanta aan aad iyo aad uga dharagsannahay inay iyagu maanta meel kasta saameyn ku yeesheen oo iyagu taladii yani wadanka oo dhan bay jecel yihiin in iyaga looga dambeeyo ama ay gacantooda kusoo ururto oo siday doonaan ciday doonaanna ku kacaan oo ay shacabka u adeegsadaan
ciday doonana ay maxaan ku rahdaa soo dhaweeyaan haddii ay maslaxadooda ka helaan oo ay ugu weyn tahay yani jiritaanka qabiilkooda iyo koryeelidda yani xaqdarada taasna ay gaarsiisan tahay maanta inaan 30 sano dib u marsano maxaa yeelay cadaaladii baa meesha ka maqan haddaanay cadaalad jirin naxariista ilaahay way adag tahay sida lagu helo oo dad baa la dulminaya oo laga hadlaynin arrimahooda maalin kasta dil dhacaa maalin kasta lees dafaa lees booba maalin kasta xuquuq lees ku tuntaa maalin kasta baad lees ka qaata intaasoo dhan iyadoo loo jeedo baa haddana waxaan la arkaynin qofka hadlaysa oo qof kasta uu ogyahay marka arrimahaas halkii lagu soo bandhigi lahaa culimada diinka laftigooda loogu yeeri lahaa ama fariinta loogu gudbin lahaa loogu gaarsiin lahaa inay arrintaas u istaagaan waxyaabaha kale ku mashquulsan yihiin meel iska dhigaan maanta tan la taagan yahayna ay tahay yani arrintan oo muhiim u ah yani jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo maslaxada maxay ahaato shacabka Soomaaliyeed iyo inay maxaan ku raadaya odayaasha kaleeto sidaas ayagana la gaarsiiyo oo go'aan laga qaato qof kasta oo qaldan oo cadaaladda iyo xaqa ay shaqeeyaan oo aan runta laga leexanin oo laga qarin oo laga gabanin qof kasta la gaarsiiyo ayaan isleeyahay waxaa ku suuli kara dulmiga waxa la yiraahdo waxa lagu gaari karaa barwaaqo waxa lagu gaari karaa isjacayl iyo wada noolaansho waxa lagu gaari karaa iyadoo aan leys dhibsanaynin maxaa yeelay meesha la leeyahay hadda waa wadan Soomaaliyeed dadka ku nool aad buu u yar yahay laakiin haddana waa la isku dhib qabaa waxa markasta la isku haysto ama la isku dagaalamo si la isku dilo waa dhul yani boob oo baxsan oo aan cidna loogu bareerin oo iska socda cidna loogu aabiyeelin ama laga gabanin oo iska socda waxaa kaleeto caadi laga dhigtay maxaan ku rahdaa dagaalo aan kala joogsi lahayn kaasoo mar walba salka ku hayo waxa la yiraahdo sad bursi oo xaqdara ah waxaasoo dhan dulmigay hoos imaanayaan markii la yiraahdo magacan dulmidiidkana intaasoo dhan buu asaga u istaagay oo ku dhiiraday inuu farta ku tilmaamo uu abaaro uu magacaabo uusan ka gabanin marka waxaa iska cad inay caqabado badan imaan doonaan waxaa iska cad inay dhaliilo badan loo soo jeedin doono waxaa iska cad inay dad badan soo dhaweyn doonaan inta nabadda jecel inta samaha jecel inta xaqa jecel oo dhan waxaan aaminsanahay inay soo dhaweynayaan kuwa weligood dulmiilayaasha ahaa dhibka jeclaa oo weligood inay xaalad degto sidan ka wanaagsanaatan nacbaana waxay noqonayaan kuwii dhaliili lahaa marka intaasba waa in loo dhabar adeego oo laga gudbo annaguna waxaan jecelnahay inaan maalin kasta iyo xilli kasta iyo saacad kasta dhacdooyinka waqtigooda ku haboon inaanu qayb ka qaadano oo soo gudbino oo fariimaha ummadda Soomaaliyeed halka oo soo marsiino oo marqaati uga dhigno beritoole waxyaabaha aan annagu hiigsanayna ama dhibta aan tabanayno in ay annagu yani gacanteena mid ku jirta ay tahay gacanteena inaan iskaga suulinana ay tahay marka intaas oo dhan sheekadan waxaan arkayaa hadda xilli ay ku haboon tahay inay soo bilaabatay oo yani la asiibay dadaalka wada ayaan idin leeyahay dhammaanna waxaan ugu baaqayaa aqoon-yahanka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kuwa Soomaali wanaaga jecel kuwa xaqa u heliya inaad ka wada qayb qaataan barnaamijkan dulmidiidka ah kaasoo aan isleeyahay waxyaabo badan ayuu ka bedeli karaa xaaladda ka jirta wadanka annaguna waxaan diyaar u lanahay inaan qayb ka noqono kuwa xaqa u heliya dulmiga mar walba ka soo horjeeda meeshuu ku jirana ku tilmaama si uu u zuulo insha Allah waxaan mar labaad wada salaamayaa bahda dulmidiid media group waxaan mar labaad salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay caalamka joogaan waxaan naftiinayteedaba kula dardaarmayaa cabsida Ilaahay inta ka sokeysana waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله حسن حاج موسى رناتي أد أماسن تهي فرين تاذا إيو بوغادين تاذا يديرجلين تاذا وحين النقطي من أن مرولي نقطة أنا تصالح إيو كدايشو وأنا جينا ذاتك لو كل مدة وفكر كايغا قبو إني أيغن أين لسو حريري دونان أين نسو قد بيد دونان أنا مخالطة كسابسن aragtidooda iyo sida barnaamijkan loo horumarin lahaa oo dhamaan u gaari lahaa dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan insha Allah barnaamijkeena sida aan horeyba aan idinku balan qaadnay ama
aad la socotaan wuxuu noqon doonaa mid joogto ah qof waliboo dulmisan ama la dulmiyeyna garab iyo hiilo ayaa u noqon doonaa qofka wax dulmiyeyna waxaan isku dayaynaa inaan wacyigelin iyo u sameyno tusaale iyo talo inaan siino si uu walaalkiisa ama walaashiisa uu dulmiga ugu daayo insha allah waa soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wixii fariin ah ama muuqaal ah iyo aragti waad noo soo gudbin kartaa adigoo kusoo dirayo emailka hoos ku qoran nala soo xiriir gacan furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa insha allah dulmidiid media group qof si gaar ah u lahma laha wuxuu markastaba la jiraa ama uu waxa u yahay wehel iyo walaal qof waliba oo kasoo horjeedo dulmiga waa mahadsantihiin nala socda wixii cusub sidoo kale ha iloobin inaad subscribe iyo share iyo like ku samaysid si oo muuqaalada cusub ay kuu soo gaaraan walaalahana ay u gaaraan ayagana intii hore u samaysay ama barnaamijkaa share garaysayna runaatii aad ayaan idinka mahadcelinayaa waa mar kale iyo dulmidiid media group oo idin leh waa mahadsantihiin wada shaqayn wacan asalaamu calaykum